وفد بالليرن أو صهر كهاي وزيرك وزارة كاللوميسجي قيرات كبدا الدولة الفدرال كصوماليا يجيك هداري مقالة بيدبا حرنتو قبل كباي ما يبنسوينها كدواي جرون كديارة شات جدود ايربورت مقالة بيدبا حبنين اسكنجرة وزيري حلبانو سوكميداي وزيرك وزارة غيرات كبدي كاللوميسجي كوفر قلبات صوماليا كورد مديو هديرين مدحتويدا ما يبقى كلن البابد انهيرن لوال لدينا كسماغا مدوينغا محمد حسن فقي intaasay kureed shaljarayd iyo wada jiray aan qobadan may bana ugu horeyn qaabka hadhawaayo ka kiisho ku hadalay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Dr. Maxamuud Xuseen Cali oo Ibrow waxaan maanta sharaf weyn yahay inaan ku soo dhaweeyo wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowladda federaalka Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi wasiirka wasaaradda howlaha injineer Saadiq iyo senatorka aqalka sare Dr. Ilyas dana qowdaneyn iyo xildhibaan aqalka golaha shacabka ee dowladda federaalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ku soo dhawaada caasimada gaarka maamulka koonfur galbeed wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhinaga kiishay ku hadalay ujeedada socdaalka wafdiga ee walayaabo iyo qorsheeyayaan waxaan marka hore jeclahay inaan ku mahadceliyo wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee koonfur galbeed mudane Maxamuud aad iyo aad ugu mahadsanyahay soo dhaweyntii wanaagsan ee soo dhaweeyay waxa kale oo aan aad ugu mahadcelinayaa dhismaha madaxweynaha oo isaguna si wanaagsan loogu soo dhaweeyay iyo sidii jaranadooda loogu soo dhaweeyay waxa kale oo aad sharaf ii ah wafdigan aan hogaaminayo inuu nala socdo wasiirka federaalka ee howlaha guud iyo dibadhiska iyo senator wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo reedan dhiska dalka dowladda federaalka Soomaaliya injineer Saadiq Cabdulaahi Cabdi oo siina qayb ku hay xubna wafdiga yaraniga kiishay sharaxay waliyaabo iyo qayb ku hay socdaalka kiisho inta gobol ee dalka iyo hamareen safarkeena runtii wuxuu ka turjumayaa baahida guud ee gobolka ka jirta sidaan ku ogaan lahay gaar ahaan dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha ugu horeeya waddooyinka oo runtii aan dareemi karo inay baahi weyn ay ka jirto wasaarad ahaan waxaanu aad u dadaali doonaa inaan wax badan ka qabanno weliba ay ugu horeyso dhismihii national highway authority-ga magaalada taasoo noo fududeynaysa in badan oo uu ka muuqdo waddooyinkan hadda aan soo marnay iyo kuwo kale oo damacsannahay in magaalada Baydhabo ka xidli ama dib loo habeeyo inaan wax ka qabanno sidoo kale waxaan rabnaa inaan si hoose isula meel dhigno wasaaradda barnaamijka ay lead ku tahay ee infrastructure bila walking route-ka in shanta wasaaradood ee ku jirta infrastructure-kaasi ay baahidooda koowaad ama mudnaanta waxa ay leeyihiin way tahay hadday noqon wafdigan geek hadeeri magaalada Baydhabo mayba ku koobanaayeen xubnayn iska jara wasiirihii xildhibaano iyo ku mid hayeen hano ku tirsan aqalka sare ee baarlamaanka ee hano ku tirsan golaha shacabka Soomaaliyeed Maxamed Nuur Maxamed Cabdulaahi telefishinka caalamiga ee koonfur galbeed Soomaaliya Baydhabo.